بروفيسورك iyo wasiirka aad u mahadsan xameena borosorka taariikhda meelaha ka hadli karo soo gaarsiiyay ka bilaabi doona doorashooyinka uu sheegay oo kacaanka qabtay ani kaasa ka qayb galay oo waxa la oran jiray ha buluuga ma yahuudka marka buluuga sal lagu ridi jiray saduuqa qorta codka lagu ridi jiray kaasa laba marka qayb 79 iyo 85 amana inuu ahaa waayahay runtii Soomaaliya markii oo burburkii uu ku dhacay waxa burburay ma ahayn oo kaliya dawladnimada waxa naga burburay dhaqankii waxa naga burburay diintii waa naga burburtay runtii confusion badan dadku ku abuurmay waxaan hadda inta badan xooga la saaray sidii dawladnimada loo soo dhisi lahaa iyadoo aan dadkii dhaqankii laga hagaajin confusion diinta galana aan laga hagaajin waxa kaloo burburay dadkii qalbigooda burburay oo dhibaatooyin badan oo hadda professorka wuxuu sheegay taariikhda in wax laga barto dadku waxay xambaarsan yihiin go'aasho badan oo ay soo dhaafeen ayay xambaarsan yihiin go'aashadana waxay ka bedeshay sida u fikirayaan ee saameyn ku yeelatay waxay saameyn ku yeelatay hab dhaqankooda saameyn ku yeelatay waxay kaloo saameyn ku yeelatay aaminaadii aaminayaan ama haddii ahaalad iyaga dhexdooda iyo haddii ahaalad dawladnimo inay aaminaan intaba waxaa saameyn ku yeeshay dhibaatooyinkii la soo maray marka mar kastaba oo la rabo in wax la qabto waxa aad iyo aad muhiim u ah in laga fikiro bulshada naftirkeeda xaaladda ay ku sugan tahay meesha ay taagan tahay iyo waxa la rabo in la gaarsiiyo inay qaadan karto in laga fikiro aad u wanaagsan tahay wax kastoo wanaagsan oo bulshada loo keenay haddii aanan lagu xisaabtamin habkii ay u qaadan karaan ama ay ugu dhaqmi karaan ama processka loo marayo arrintaas aysan ahayn mid ay dadka la jaan qaadi karaan waxay ku dhamaanayaan fashil ku dhamaanayaan waxyaabaha aan runtii markii laga hadlayo bulshada rayidka markii burburkii oo dhacay dawladnimadii runtii horta Soomaaliya maasha Allah dhaqankaas burburay naftirkiisa oo aan ogsoonahay inay odayaal badan ay sameysmeen oo duplicate ah maqaarkood koobiyaal ah kuwii saxda ahaa kuwa kale loo kor saaray haddana dadku weli waxay isku maamuli jireen habka dhaqanka isku maamuli jireen bulshada rayidka marka ay abaabushka bilaabeen waxyaabaha ay xoogga saareen waxaa ka mid ahaa horta in adeegyada bulshada dib loo soo celiyo isla markaana runtii laga dhex shaqeeyay sidii dadkii la isku soo celin lahaa dawladnimadana loo raadin lahaa xaalado badan la soo maray stage badan la soo maray oo ay aad u kala duwan oo midba midka kale oo kasii xumaa waxa dhacay dadkii inay qabaa'il lahaayeen qabaa'ilkii inuu ka dhasho hogaamiye kooxeed inuu ka dhashay maxaakiim inuu ka dhashay shabaab oo nidaamkaas la soo maray oo dhan midba midka kale waa ka cuslaa dadkii wuxuu ku reebayay go'aashooyin badan dhibaatooyin badan ayay mid kastaba marka dambe ay kasii dhaxlayeen oo ay marka iyagoo la tacaalay haddana ay markastaba dhibaatadaas ay la kulmayeen runtii markii dawladdii la helay oo dawladihii kasoo bilaacartay ilaa iyo kuwii Kenya lagu soo dhisayay bulshada rayidka kaalin weyn ayay waxay ka qaadanaysay sidii dawladnimadaas ee u shaqayn lahayd iyadoo markaa laga fiirinayo sidee gacan ugu heli kartaa bulshada oo kalsoonida bulshada ay ku qabi lahayd dawladdaas loo heli lahaa maxaa yeelay dadkii intii dawladnimada maqneed waxay ku xirmeen oo ay isku maamulayeen nidaamka qabaa'ilka marka inay nidaamka qabaa'ilka ka soo laabtaan ee nidaam dawliga u soo laabtaan waxay ahayd in laga shaqeeyo oo ay aaminaan in nidaamka qabiilka inta laga soo guuray nidaamka dawliga imaadaan shaqo u baahneed ay ku aaminaan nidaamka dawliga sida maaragta ay usoo dhinacaas usoo aadi lahaayeen bulshada rayidka meesha ay ka shaqeynaysane oo inta badan ay xoogga saarteen wuxuu ahaa sidii nidaamka dawliga ay usoo aadi lahaayeen dadku iyagoo markaa ku wacyigelinaya dadka sidii dawladnimada ay u aamini lahaayeen runtii dhinaca dadweynaha kaliya ma ahayn dhinaca dawladda naftirkeeda siyaabaha lagu aamini karo iyo waajibaadka laga rabo inay la timaado si mataqaanaa dadku aaminaan waxay kala hadlaysay dhinaca dawladda kala hadlaysay iyadoo markaa qaladaadka markaas jiray oo dhan oo ama nidaamka dawliga sida loo isticmaalayo ay talo badan ka bixinaysay ama cadaadis badan ay ku sameynaysay ciidii markaas talada haysay sidii ay ugu shaqeyn lahayd in dadweynuhu ay ku soo xirmaan dawladnimada
meelaha aan marka aan inta badan aan xoogga saarayna meelahaas ayaa ugu mid ahaa waana tii marka hadda aan ku bilaabayo oo ahaa bulshada rayidka waxyaabaha loo asaasay inay ahayd barubi in marka ay isku xirto dowladnimadii iyo dadkii inay is-aaminaadoodii ka shaqayso isla markaana nidaamka dadka lagu maamulayo dowladda ay ku maamulayso haddii ahaleed siyaasadaha ama sharciyadana markaa tala badan ay ka geysato si markaas ay dadku ay ugu faa'iidaystaan nidaamka dowladnimada markii hadda dowladnimadii hadda la helay tallaabooyinka dambe hadda la qaadayo inta badan anaga waxaan ka fiirinaynay tallaabo kastoo la qaadayo xeendaamka ku xareereysan oo caawi karo inay arrintaas hirgasho ama wax dhaqato muxuu yahay maxay u baahan tahay arrintan ujeedadan in la gaaro maxaa caawi karo oo u baahan in la qabto oo tallaabooyinka kale u baahan tusaale waxaan soo qaadan karnaa sida mataqaanaa dib u heshiisiinada oo ay gacan weyn ka geysteen bulshada rayidka sidii loo sameyn lahaa dib u heshiisiin suurtagal ka dhigta in dadku markaa isku soo dhawaadaan aaminaadoodana ay dib usoo laabato sidoo kale doodaha noocan oo kale ah inay aada ugu qayb galaan si markaa ay dadku u helaan fursad markaa lagu dhagaysto dowladdan ay kala shaqeyso sidii ay u maqli lahayd codka dadweynaha markii inta laga soo tago nidaamka hadda doorashada laga dhawaaji hadda oo qof iyo cod ah runtii ololihiisa anaga horaan u bilownay 2019 aniga leegu casuumay UN Security Council inaan ka qayb galo oo aan ka cadeeyo waxa Soomaaliya markaas ay rabto hadalkii aan ka jeedin waxa uu ahaa in doorashada aan doonayn in tahay doorasho qof iyo cod ah nasiib daro waxyaabaha hor istaagay waxa ugu weynaa waxay ahayd wada shaqeyn la'aan ka dhaxaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka taa oo ku timid inay is-aamin daro dhexdooda ay markaas jirtay amaba habkii ay u wada shaqeynayaan oo aanan labada dhinacba aan ku qanacsaneen juhdi badanna aan la gelin oo ay markaas suurtagal ka dhigi karo in wada shaqeyntooda ay xoogaysato si loo gaaro ujeedada markaas la lahaa dhinacaas marka aad ka fiirisid dimuqraasiga aan Soomaaliya markaa ay ku shaqeyn kartaa wuxuu ahaa mid wada ogol ah wax kasta in laisla ogolaado oo ay noqdaan wax markaa intii laga tashto laisla qaato suurtagalna ka dhigo marka inay shaqeeyaan runtii bulshada rayidku hadda go'aamadii u dambeeyey oo lasoo saaray amaba shirarkii hadda golaha wadatashiga qaran waan xasuusnaa anaga shirkii November ay yeesheen waxaan la wadaagnay qoraal madasha oo marka aan ku talinaynay waxyaabaha priority u baahan in Soomaaliya maanta la saaro runtii communique ka soo baxay shirkaas waxyaabo badan ayay ka tixgeliyeen qoraalka marka anaga aan u soo jeedinay waxyaabaha ugu muhiimsan marka aan ka hadlayno waxay ahayd Soomaaliya markii hadda dowladnimadii la dhisayay Kenya oo shirkii Embagaasi waxyaabaha dood aad u dhalatay waxay ahayd war dowladnimada hoos laga bilaabo iyo hoos hadii hadda laga bilaabayo waqti badan ay qaadanaysaa waa in kor laga bilaabaa oo hoos loo daadajiyaa waatii dowladii la soo dhisay kumeel gaarka ahayd waatii dowladihii kadib mandate-kooda loo siiyay inay dhisaan markii nidaamka federaalka la qaatay inay dhisaan dowlad goboleedyadii oo federaalka la dhameystiro oo la dhiso mar haddii la dhiso dowladaha federaalka oo xubnaha ka dowladda federaalka tallaabada saddexaad in la qaado waxa ay ahayd in golaha deegaanada la dhiso oo ah halka u dambeyso oo dowladnimada kana soo bilaaban lahayd kuna dhamaatay inay ahaato runtii juhdi badan lama gelin in la dhameystiro nidaamkaas dowliga ah oo ah heekalka u hooseeyay oo dowladihii hoose oo haddii doorasho la qabanayana suurtagal tahay in doorasho laga qabto haddii ummadda dib u heshiisiin loo sameynayana suurtagal tahay meesha dib u heshiisiin laga sameeyo haddii ay suurtagal noqon karto in qofka Soomaaliga ama wadaniga ah ee codkiisa la maqlo meesha ugu dhow codkiisa uu gaarsiin karo inay tahay golaha deegaanka oo markaa loo gudbo meeshii ilaa heer maamul goboleedka dowladda federaalka nasiib daro dowladihii dalka soo maray way ka gaabiyeen runtii in la dhameystiro levelka saddexaad ee dowladaha hoose waa tan hadda la leeyahay muddo hal sano ah suurtagal ha ku noqdaan waxaan ogsoonahay in fursado badan oo la helayna aan laga faa'iideysan annaga marka
annagoo aada u soo dhaweynay go-aanada muhiimadda ay leeyihiin iyo fadhiyada golaha wadatashiga qaran ayaa haddana markii aan bulshadeed ahaan aan ka munaashaqoonay waxaa noo soo baxday go-aanadan oo qaarkood wada wanaagsan yihiin processka lagu gaaraya dhan inuusan caddeen waxaan xoogga saarnay marka inaan processka aan talooyin ka dhiibno maxaa yeelay muhiimadda waxay tahay waxa waaye howl kastoo fiican haddii waddo qalad lagu qabto fashilay ku dhammaanaya waxaan ka fiirinayna marka doorasho qof fiican wax fiican waaye laakiin dariiqa lagu qabanayo hadduu qaldan yahay waa lagu fashilmaa dowladdii hore aada u hadal haysid oo doorasho qof fiican slogankeeda ahaa laakiin haddana dariiq sax ma aysan hayn waxaa ula jeedna waxay tahay waxyaabaha fulinta processka ama tallaabooyinka lagu gaari karo waxaas wanaagsan waxaa tilmaamo nidaam ama sharci lagu heshiiyaa tilmaamo qof ma tilmaamo haddii marka uu jiro nidaam ama sharci tilmaamayo nidaamka ujeedadaas la go-aansado ama go-aankaas la gaaro in lagu gaaro qof kasta waxay ku qancaysaa ama ku kalsoonaan kartaa nidaamkaasi ku kalsoonaan kartaa lagu heshiiye laakiin haddii taladu ay ku xiran tahay qof oo qofkaas go-aanka oo gaaro ay tahay in uu shaqeynayo dee aamin daradiina waa badanaysaa wixii soo baxana wax sax ma naqanayaan amaba ma suurtoobaysa in la gaaro ma suurtoobayso waxaan la soconaa doorashooyinkii baarlamaanka 11aad waxyaabihii lagu heshiiyey oo dhan looma dhaqmin wax laga soo qaada haba yaraatee male sidii la rabay loo sameeyey waxaa marka dadweynaha ay sugayeen amaba bulshadeed ahaan aan talooyinka xooga dhiban ahayd war dowladda sanadka ugu soo horeeyo ha ka shaqeyso hana soo celiso kalsoonidii dadka oo burbur ku dhacay nasiib dara ma dhicin waxaa la galay dagaal runtii dagaalku dadkuna qeybay ka ahaayeen oo dhibaatooyin badan la kulmay ka bilaabeen dowladdani gacanay ku siisay waxaa socdo dagaalkii inuu hadda meesha dhexe marayo hadda iyadoo dagaalkii meel dhex marayo oo dadku usii jeestay dhinacaas oo wejiga hadda labaad la sugaayo ayaa haddana hadda waxaa furmay dood kale oo ah doorasho qof iyo cod iyo extension la sameeyo iyo nidaamkii dastuurkii wax laga bedelayo xaalad kale abuurta marka waxyaabaha aan rabnay marka inaan leenahay processka la marayo markasta ha laga fikiro waxa ay tahay dadku markay meel ku jeestaan haddii buuqa meelka albaabka loo furo kiina waa kasoo laabanaya kana si ku gaara waa adkaanaysaa waana waxyaabaha meelihii u baahnaa in go-aanka inta aan la gaarin talo badan la geliyo dadka lasii diyaariyo loo sii diyaariyo go-aanada la gaari doono si u qaadan lahaayeen runtii ma aysan dhicin dadkii markii wareera ku dhacay waa aragtaa reactionka meel kasta ka yimid qofba meeloo ka arkay annaga bulshadeed ahaan marka waxaan xoog hadda saarnay war processka arrintan loo maraayo aada ha loogu fikiro weliba baarlamaanka oo talada gacanta hadda ugu jirto inay aada ugu fikiraan haddii loo baahdana in talooyin la geliyo iyo wada tashiin la geliyo iyo dood la geliyo ay hadda fursad weli ay jirto arrimahaas laga doodi karo oo talooyin badan la geli karo si dadku ay wacyigooda kor loogu qaado fahmaan iyadoo xaaladda dagaalka jiro haddana in nidaamyada dawliga kale la gaari karo iyadoo aan markaa aysan naqan midka kale burburinayso marka tan anigaas bulshadeed ahaan aan runtii aada ugu fikirayn waxay ahayd war go-aanada hadda soo baxay habkay kusoo baxeenna talo badan lama gelin habka lagu gaari karana hadda weli ma muuqda mana cadda intaa marka ay u baahan tahay talo badan u baahan tahay wadatashi badan u baahan tahay consens badan u baahan tahay markii laga hadlaya arrimahan maxaa yeelay dadku dhibaato badan uu soo maray weli dib u heshiisiin dhab ahna dalkii lagama sameynin is-aaminaadii weli waa liidataa marka wax kasta oo marmarka qaarkood wax wanaag adoo ka shaqeynayo waana soo aragnay dadkii marmarka qaarkood wanaagooda ayaan ku cadaadin inay ogolaadaan dantooda oo ka shaqeynaya maxaa yeelay aaminaadii ka luntay
marka in lagu xisaabtamo dadkan ka hadlayna waa dadka kama hadlaya dad magaalo joogay dad mataqaanaa dowlad ku dhadhow shacabka dowladnimada u baahan waa shacabka baadiyaha ruulka degan waay meelaha dhibaatada xoog gargaartana meelahaas waay oo u baahan maanta adeeg dowladeed oo rasmi ah oo iyo maamul rasmi ah oo mataqaanaa oo u adeega ama gaarsiiya waxa markaas ay rabaan runtii su'aalaha uu dhiga doonaa waxyaabihii kale aad baad u mahadsantahay